Somaliyo idil, Somaliyo idil, وحومانا وما قابو أنا هاي ولا النيمو أفكو هذا الإسلاميو يسر بان وداقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله مع المتقين. أما بعد إخوة الكرام أو سلامتي دمان ولا له الصوماليات عالمكم ميلو بعد كجوكتان سلام كدب وحان رومانتنا وحير عن كتابته إن حرقي ولكن عبد الملك موسى علدون إن شخصية عبد الملك يوحي أمده وقبتي waxa aan filaynay Cabdi Malik in lagu abaalmariyo iyo abaalmarintiisii waxa laga dhigay iyo codsi aan ka codsanayo maamulka xirtay Cabdi Malik iyo walaalaha deegaanadaasi ku nool inay u ololeeyaan in la soo daayo maxoriyadiisa loo soo celiyo walaalkan Cabdi Malik haddii maamulka codsigeena uu aqbali waayo cuquubada ka dhalan karta iyo waxa uu Cabdi Malik rabbi ugu bedeli doona xariga ayaan rabay inaan yar ka taabto. markii ugu horeysa walaalayaal la socotaan Cabdi Malik waa wariye, waa walaal Soomaaliyeed, waa walaal ka shaqeeya samafalka, waa walaal jecel dadka danyarta inuu u shaqeeyo, waa walaal soo bandhiga mar waliba baahida ay qabaan dadka masaakiinta aan baahidoodii gudan karin, waa walaal u istaagay masaakiinta ay iska indhitireen oo ay wax u qaban waayeen dadkii la rabay inay wax u qabtaan. Cabdi Malik waxyaabaha aan ku xasuusana waxaa ka mid ah walaalkii reer Burco ee Cabdullaahi Aadan oo run ahaantii muddada 20 sano in ka badan silsilada ku xirnaa ciida seexan jiray oo run ahaantii roobka ku dildii jiray qorraxda ay ku soo bixi jirtay ay ku dul dhici jirtay wax daryeela la'aa silsiladii lugta looga xiray heer ay gaarsiisay in lugtii infection ay qaado laga jaro tan kalena ay ku socotay. Cabdi Malik wuxuu ahaa shakhsigii intuu walaalka u tagay kaamira ka soo duubay baahidiisii ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigay kadibna sabab u noqday walaalka dhibka in laga saaro. waan la soconaa walaalayaal, waa la dabeeyay. Cabdi Malik heer wuxuu gaarsiiyay walaalka isaga in magaalada Burco in looga dhiso guri villa ah ku kacday lacagtiisa $18,750. Cabdi Malik ma ahan kaliya hawsha qof ruux ma arkaysa qabtay. waxqabadka Cabdi Malik laguma soo koobi kara hal kali video ah. waxaan ku xasuustaa Cabdi Malik in uu yahay shakhsiga kaliya ee tagay tuulooyin gobolka Togdheer oo run ahaantii mas'uuliyiinta iska indhatireen inay tagaan walaalihii ku noolaa ee abaartu ay baabi'isay ayagii iyo xoolahooda. wuxuu ahaa shakhsigii video ka soo duubay ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigay wixii loo soo dirayna si sharaf leh u gaarsiiyay oo biyo gaarsiiyay cunto gaarsiiyay. Cabdi Malik ayuu ahaa. hawlahaas oo idin waxay ahaayeen hawlo laga rabay madaxda maanta Cabdi Malik xirtay inay qabtaan way qaban waayeen. Cabdi Malik isagaa u istaagay. Cabdi Malik waxaan ku xasuustaa in badan dadka xanuunsan inuu guryahooda ugu tagi jiray oo ma arkaysa baahidooda uu soo bandhigi jiray. walaalaha Soomaaliyeed ee ka soo jawaabtay lacagaha ay u soo direen si sharaf leh ayuu ugu geen jiray Cabdi Malik. ruuxii u baahda caafimaadna wuxuu ahaa nin isbitaal geeya. Cabdi Malik wuxuu ahaa nin ummadda u nool ee ma ahayn nin naftiisa u nool ma ahayn. marka walaalaha sharafta lahow mas'uuliyiinta Cabdi Malik xiratay waxa aan maanta filaynay waxay ahayd Cabdi Malik in la guddoonsiiyo bilad sharaf in la guddoonsiiyo magaciisa madaxtooyada in lagu qoro ayaan sugaynay ee ma sugaynin xabsi Cabdi Malik in loogu bedelo abaal jisadiisa. ruux markuu wanaag sameeyo waa loo abaal gudaa ee xabsi looguma bedelo. nasiib daro waay arintaas iyada ah. waxaan ka maqlay nin carab ah oo dhahay reer galbeedku ruuxooda faashilka ah ayay kor u soo qaadaan ilaa ma uu naajix ka noqdo. annagana ruuxeena naajixa ah ayaan hoos u rixnaa ilaa ma uu faashil ka noqdo. run ahaantii taasaan taagannahay dhammaanteen. maanta Cabdi Malik maxaa lagu haystaa? Cabdi Malik waxaa lagu haystaa inuu tegay magaalada Muqdisho oo u ololeeyay dawladda Soomaaliyeed taageeray madaxweynaha Soomaaliya.
waxaa nasiib dara ah in magaalada Hargeysa dhexdeeda hotelka Mansour xalfad loogu qabtay looguna dabaaldegay xisbiga Itoobiya maanta talada haysa ee maalinta ay taladu ay qabteen in magaalada Hargeysa dhexdeeda loogu dabaaldego waliba dadkii dabaaldegaya calanka Itoobiya in loo dhiibay qaarkoodna ay soo xirteen mas'uuliyiin iyo madaxna inay ka hadleen arrinkan iyada ay markii ay soo dhaweeyeen ay u hambalyeeyeen Hargeysa loogu dabaaldegay Itoobiya walaalkii ma arkaysaa intuu baxay magaalada Muqdisho tagayna waxaa dambi looga dhigay dawladda Soomaaliyeed ayaad u dabaaldegtay run ahaantii bani aadamku way kala mowqif doonaan karaan haddii ruuxa isaga garaadkiisa uu siiyay in walaalihiisa kale uu riixo uu arkay inuu keligii uu noolaan karo Cabdimaalik garaadkiisa iyo hankiisa halkaa wuu ka weynaaday wuxuu jeclaaday Soomaalinimo wuxuu ogaaday midnimo in ma arkaysaa wax lagu helayo meel fog ayuu Cabdimaalik wax ka fiiriyay haddii adiga dareenkaagii uu kaa ku siin waayo ama aad garan weyday ma aha inaad dhahdid qasab igu soo raac oo fikirkayga qaado haddii kale xarig ayaad gelaysaa Cabdimaalik waa xor sidaas daraadeed waxaan ugu baaqayaa maamulkii xiray ama xirtay Cabdimaalik in bilaa shuruud inay soo daayaan xorriyadiisa inay ugu soo celiyaan dhaqan islaam iyo dhaqan gaal mid banaynaysaa ma jirto Cabdimaalik inuu xabsi uu ku xirnaado waayo dambi uu galay ma jirto shacabka ku nool deegaanadaasi waxaan ugu baaqaynaa in ay u istaagaan arrinkan Cabdimaalik aysan ka aamusin haddii xariga Cabdimaalik maanta aad ka aamustaan بريتولي حرقة إذنكم إذنكم صعدا هذه قضية Cabdimaalik أي تها إنه دولة Soomaaliyeed إنه تاجري بري إذن كان متكلة أي اللي إذنكم من مرسيان دونا حبسي واللي لسان لكن هذه ما أنت من نماذج موجسان عاد كعدان ورنيك مسؤولية إله النصارى نجا قاضي أنه شقوي كنا جارك كم مشغول سن أنتم بحي هوليه السحر مساكين تي وحقوق بنجري حارق مم تستين نك أهل السود ده أنت هذه لا إذا عدد كعمستان والله بريتول إنك إذنكم صعدا وحنا إنك عسنا إن عاد كعدان وعاد حرق Cabdimaalik عاد كقيلدان وعاد دولة الله هذا شان إن Cabdimaalik للسود ده هدي Cabdimaalik للسود ده ويمحاك دلنا دي بأبارة تاريخ ده دولة ولي بجرتي بربرتي وحين لا بربرتي ظلمي أي أوجيست شعب كده هذا دي بحاسستان دولة دي محمد سياد برا كل سجال بقول يشان يتدواتن كي علماء اللي يقول لا يا صوماليا كل سجال بقول سيدتن كي ولا عليه رار هرجيسة إلا الدقية إلا اللاي إيوه علماء بدن إيوه شعب بدن أو حبق قلبسن أو حبسية لو جري حرية دودي لقى قاضي ظلمي ضد كاسي لو جيستي أي دولة محمد سياد برا يكون بربرتي عراق ليبيا سوريا waxa ay maanta la burbureen waa dulmi ay shacabkooda iimaatada ay u geysteen hadaba ogow kama sharaf badnid ruux waliba shacabkiisa sida u dulmiya waxa u dambayn doonta in uu burburo ilaahi azza wa jalla wuxuu leeyahay wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum qaasa iska ilaaliya fitna dulmigeeda aanan ku cuqubadeeda aanan ku ekaan doonin inta dulmiga sameeyay kaliya bal inta deegaanka ku wada nool fitnada cuqubadii ka dhalata way wada saameynaysaa maanta waad arkaysaan fitnadii dawladii ay geysatay annaga dhan wayna wada saameysay ogaada marka arrinka Cabdimaalik hadii loo istaagi waayo cuqubada ka dhalata kii xiray iyo kan u ololeeyay iyo kan ka aamusay gadi way wada saameynaysaa waxaase huwaal ah isaga inuu ilaahay cizi iyo sharaf u ka siinayo nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ruuxii la dulmiyaa ku samra ilaahay cizi ayuu ka siinayaa نبي الله يوسف أيا دليل إذا كفلان ونبي الله يوسف عليه السلام حبسي بوقلي عيال أيا لقر ذي إلهي محوق بدلي رب عز وجل وحو كدق نبي الله يوسف بقر أيو كدق إلهي عز وجل وحان أرجيننا ظلمي ولكن لا ظلمي إن أو عز شرف إنه كسي وسكهلي دونا ولا لها ظلمي جستين وحان باقينا إذن كو ما هاتسن بلا شروط سودا يا ولكن روح بني آدم كوحو حر وياهي وحق وكل ياهي عدو دونه إنو تاغيرو ما أها قفك فكر كيس إن لغو علي تمامها ماها رجيم إيكنية تلسنما أي نقوني سارنكا مركا إلهي هلغا بقو حساب أياد دنبايسا Cabdimaalik هلا سود دايو حرق Cabdimaalik وحرام جزاكم الله خير أدبدوا مهسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Soomaaliyo idil Soomaaliyo idil
وحومانا وما قابو أنا هين ولا النيمو أفكو هذا الإسلامي يسر بان وداقنا